waxaa maanta uu kasoo kordhay war cusub feeding our futures barnaamijkii soomaalida ahaa ee fraudka ay ku sameeyeen caruurta lagu siinayay cuntada waqtigii koronaha magaalada dalka Minneapolis ee dalka Mareykanka. Maanta jaraa'idyada oo dhan ilaa TV-yada waxay ka hadlayeen Soomaalidii lagu soo eedeeyay dambiga fraudka inay lunsadeen lacag ku dhow 40 milyan oo dollarka Mareykanka ah si waalan u isticmaala diyaarado iyo guryo ku gatay qaarkoodna la soo qabqabtay ayaa maanta maxkamad ku lahaa dalka Mareykanka. maxaa dhacay xalay ayaa muxuu ahaa waxay u dhigeen juurigii soo fariisan lahaa trialkooda dambigooda maanta maxkamadooda soo fariisan lahaa mid kamida oo Mareykanka madow ah $120,000 Mareykanka gurigeeda hortiisa. iyadana waxay sameysay FBI-da ayay u wacday kadibna muxuu lacagtii laga qaaday waxayna ahayd laaluush loogu talagalay maxkamadda markay timaado juuriga iyadoo ka tirsan inay qaadacdo ay tiraado not guilty dambi kuma lahayn. marka waxaa la yaab leh Soomaalida dalkooda intay soo cuneen haddana u malay dalalkan sharciyada ay ka jiraan in ay ula imaan karaan burburka iyo sharci darrada iyo laaluushkii Afrika. haaba Kenya iyo Afrika la soo maray iyo dalkii la soo cuno la soo calaanjiyay iyo ayaa weli inda adeegooda Soomaalida waxaa lagu magacaabo title-kaas feeding our futures. maanta maruu Fox ka hadlay TV uu yiri the most pandemic fraud case oo dunida ka dhaco waay. waxaa lagu arkaa filimada bowg oo kale sida Carter oo kale filimada intuu qof intuu soo qaado lacag $120,000 Mareykanka ciyaar gacanta kuma dhigaan ama dadka qurbaha sida nadiifka uga shaqeysa ee ethical-ka ah ee aan tuugada ahayn 20,000 xitaa 20 sano dalkan joogtid ciyaar gacanta lagu masaaro. marka nasiibka idin wacnaada in leeyahay Soomaalidaas waxa uu noqoto waano iyo wacyigelin ilaa heerkaas in Soomaalida laga yaaban yahay in $120,000 Mareykanka ee juuri maxkamadeed albaabkeeda ay dhigaan waa wax la yaabo runtii. waa idin salaamaya Soomaaliyaasha.